Sidee ayuu gumaysigu ku yimid dhulka Soomaaliyeed? Gumaysigu waxa uu ku yimid dhulka Soomaaliyeed marxalado dhowr ah, isaga oo ku kala duwanaa wadamada uu ka soo doolala tagay iyo meelaha ay ka soo galeen. Guud ahaan waxaa la sheegi karaa in gumaystuhu uu ka soo galay dhulka Soomaaliyeed dhinacyada waqooyiga, galbeedka, koonfurta iyo maranbiyoodyada badaha ee Ilaahay ku manaystay. 1859 ayuu Faransiisku qusul u fadhiyay magaalada Cadan, ogolaansho uga helay in Faransiisku yimaado Obakh. 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu cafarta ka iibsaday Obakh. 11 sano kadibna waxaa la furay kanaalka Suez, taasoo ahayd ujeedada Faransiiska ee badda cas. Dhanka Soomaalidana waxa uu Faransiisku gacanta ku dhigay galbeedka dhulka Soomaaliyeed oo ay Djibouti hormuud u ahayd, iyo dhulxeebeedka Djibouti oo markaa lagu magacaabi jiray Somali Coast. Talyaaniga ayaa isna doonayay inuu maranbiyood ka helo badda cas, waxa uuna qabsaday Casab oo Eritrea ah, waxa uuna uga soo gudbay dhulka Soomaalida isaga oo sanadkii 1889 bishii labaad uu qunsulkiisii u fadhiyay magaalada Zanzibar iyo suldaankii Hobyo Cali Yuusuf kala saxiixdeen heshiis Italy ku ilaalinaysa suldaanka iyo boqortooyadiisa, taasoo horseeday in Oktoobar 1889 Italyaanku soo cagadhigtaan xeebaha Banaadir. Sanadkii 1892 waxa uu Talyaanigu la wareegay magaalooyinka Baraawe, Marka, Muqdisho, Warta Sheekh iyo guud ahaan koonfurta Soomaaliya ilaa laga soo gaarayay qaybo ka mid ah gobolka Sool. 1869 dowladii Masar ee hogaaminayay Khaliif Ismaaciil barasaabkii u joogay Suudaan ayaa sanadkii 1887 booqasho ku yimid magaalooyinka Tajora, Saylac iyo Berbera. Mar dambana waxaa la soo diray nin kale oo lagu magacaabi jiray Jamaal Bey oo calankii Masaarida ka taagay Buulaxaar iyo Berbera. Tallaabadaasi Masaaridu waxay baraarujisay Ingiriiska oo askartiisa Cadan ku sugan uu hilibka uga imaan jiray magaalada Berbera, si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga hilibka uu u dhoofin jiray dalka Hindiya. Waxa uuna bilaabay inuu heshiis la galo qabaa'ilka degan waqooyiga Soomaaliya, taasoo horseeday in ugu dambeyn sanadkii 1885 uu Ingiriisku qabsaday magaalada Berbera.